الله الرحمن الرحيم habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caawa ee telefishinka HBN qodobada aan idinkuga haynana waxaa kamid ah waxaa caawa soo xoogaysanaysa suurtagalnimada dagaal balaaran oo ka qarxa gobolka bariga dhexe iyadoo la sheegayo in madaxweyne Trump uu ka careysan yahay la taliyaashiisa uga digaya dagaal xilligan lagu qaado Iran saraakiil Mareykan iyo Israa'iiliin ah oo iyaguna dhankooda sheegaya in uu dhow yahay dagaal balaaran oo Israa'iil iyo Mareykanku wada jir ugu qaadaan Iran dhanka Iran saacadihii ugu dambeeyay waxa la xaqiijiyay heegan sare in la galay iyadoo lagu soo waramayo feejignaan sare inay jirto militariga Iran iyo Ruushka ayaa lagu wadaa saacadaha soo socda in ay bilaabaan dhowlatus military arrintan waxay ku soo aadaysaa xilli xiisada gobolka cirka ay ku shareeran tahay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka digay duulaan lagu qaado Iran ruushkan wuxuu shaaciyay dhul hor leh oo Ukraine uu ka qabsaday dhamaan wararkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii war ah ee soo kornay intayna hawada ku jirno iyo falaqayntii ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararka caawa madaxda wararkan isku soo duway ayaa qadka ku jira maxamedan ku bilowna qodobada wararka ugu waaweyn iyadoo xiisada gobolka bariga dhexe kor u sii kacayso ayaa dagaal laga yaabaa inuu dhex maro Mareykanka iyo Iran oo uu noqdo dagaal dheer waxaa la sheegayaa in ololahan toddobaadka gudihiisa sida Axios loo sheegay ay aqalka cad ee Mareykanka uu diyaarinayo in uu urursado agabkiisa lagana yaabo duqeynta in ay dhacayso boqolkiiba 90 howlgallada ayaa la sheegayaa inay noqon doonaan kuwa Mareykanka iyo Israa'iil iska kaashan doonaan sida ilaha laga soo xigtay Axios waraysiiyay waxaa laga yaabaa inay ka badnaan doonto dagaalkii 12 maalmood ahaa Israa'iil ay ku duqeysay Juuntii 2025 wadanka Iran Axios ayaa soo xiganaya mid kamid ah la taliyayaasha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo sheegaya in madaxweynaha uu aad uga niyad jabsan yahay dadka ku hareeraysan oo ka digaya inaanan wax weerar la qaadin wuxuuna intaas ku daray la taliyahaasi in boqolkiiba 90 ay u badan tahay in tallaabo military la qaadayo dhowrka toddobaad ee soo socda bogga internetka Axios ayaa sidoo kale soo xiganaya ilo Mareykan oo sheegaya in dowladda Mareykanku ay u baahan tahay waqti dheeraada si ay weerar wax ku ool u qaado dhanka kale Israa'iil saraakiisheeda ayaa la soo xiganaya iyagoo sheegaya in xukuumadda Israa'iil ay riixayso khiyaar xagjir ah oo laga gol leeyahay in xukuumadda Iran xukunka laga tuuro iyo barnaamijka nukliyeerka iyo gantaalada barnaamijkooda in ayadana la soo afjaro loona diyaariyo khiyaaraadkaas dhowrka maalmood soo socda wasiir ka tirsan xukuumadda Israa'iil ee qaabilsan wadda iyo kaabayaasha Eli Cohen ayaa raadiyaha Israa'iil u sheegay in xukuumadda Iran la afgambin doono taasoo damaanad qaad u ah xasiloonida gobolka waxaa hoosta laga xiriiqay dowladda Mareykanka way ogsoon tahay fariintaasi arrintan waxay imaanaysaa iyadoo dowladda Iran ay ku dhawaaqday in dhowlatus military oo wada jira iyada iyo wadanka Ruushka ay ku sameynayaan xeebaha wadanka Oman iyo waqooyiga badweynta Hindiya wakaaladda wararka ee Israa'iil ee la yiraahdo Israel News magaceeda la yiraahdo Walla ayaa soo xiganaysa sareeyagaas Amos Yadlin oo hore u ahaan jiray taliyaha ciidamada sirta militariga ayaa sheegaya in Mareykanka iyo Israa'iil in ay ku dhow yihiin inay dagaal ku qaadaan wadanka Iran xukuumadda Iran afhayeen ay leedahay oo haweeney ah oo la yiraahdo Fatima Mahajarani ayaa sheegaysa in wadankeeda uu riixi doono wadaxaajooda isla markaasna uu si diyaar garoobi doono si barbardhaca dagaalna isu diyaarin doono si uu u difaacdo danihiisa iyo amniga qaranka gabadhan ayaa laga soo xiganayaa in wadaxaajoodka iyo difaaca diyaar garowgiisa labadaba inay yihiin laba isku laran oo istiraatiijiyadeed oo lagu ilaalinayo danaha wadanka Iran si loo ilaaliyo amniga qaranka loo dardargeliyo isku xirnaanta bulshada ayaa labada arrimood aan ka wada shaqaynaynaa ayay tiri gabadhaas afhayeenka ah Iran ayaa sidoo kale
isu diyaarinaysa inay dholotus military maalinta khamiista ay waddanka ruushka ay xulafo yihiin kula samayso badda Cumaan. afhayeenka militariga ee waddanka Iiraan Xasan Maqsudlow ayaa sheegay in dholotuskaasi wadajirka ah uu ka dhici doono badda Cumaan iyo waqooyiga badweynta Hindiya. wuxuu sidoo kale ku nuuxnuuxsaday ujeedadu inay tahay in la xoojiyo ammaanka badda gobolka bariga dhexe iyo xiriirka ka dhexeeya labadan ciidan badeed ee Ruushka iyo Iiraan, sida laga soo xiganaya INSA oo ah wakaalad warar oo ka shaqeysa waddanka Iiraan. waxaa sidoo kale la sheegay inaan faahfaahin dheeraad laga bixin dholotuskaasi inta maalmood uu qaadan doono. madaxweynaha Turkiga Tayyip Erdogan ayaa ku celiyey mar kale in waddankiisa uu kasoo horjeedo in tallaabo militari lala beegsado waddanka Iiraan, wuxuuna hoosta ka xariiqay Turkiga inuu ku wargeliyey waddanka Maraykanka iyo dhammaan dalalka kale in la diidan yahay tallaabo militari in lagu qaado waddanka Iiraan. isagoo warfideenada kula hadlayay diyaarad ayuu waxa uu kaga soo noqonayay waddanka Ethiopia ayaa madaxweynaha Turkiga waxa uu sheegay in tallaabo kastoo Iiraan lagu qaado aynan keeni doonin danaha laga leeyahay gobolkana uu noqon doono mid qaaraha ugu badan uu gaaro markii dagaalka cusub uu ka dilaaco. Erdogan ayaa sheegay Turkiga inuu ka shaqeynayo sidii uu dhiirigelin lahaa wadaxaajood inuu dhex maro Maraykanka iyo Iiraan, lana sii wado xiriirka madaxda sare gaar ahaan labada dhinac. wuxuuna ku nuuxnuuxsaday xal diblomaasiyadeed ayaa ah sida keliya ee xiisadan hoos loogu dhigi karo. madaxa waddanka Ruushka u qaabilsan wadaxaajoodka magaalada Geneva ayaa ku dhawaaqay in lasoo afjaray wadahadaladii u dhexeeyey Ruushka iyo Ukraine 2 saacadood kadib markii shirka la bilaabay, laguna tilmaamay in arrimaha laga wadaxaajoonayay ay adag yihiin, miliqsan yihiinna waxaana la tilmaamay in la sii wadi doono wadaxaajoodka. dhinaca Ukraine ayaa iyadana wafdigeeda waxa uu sheegay in lasoo afjaray kulankii saddexaad ee wadaxaajoodka, waxaana la sharaxay in wufuudda ay bartilmaameed ka dhigteen in ay fasiraad dheeraada ka bixiyaan waxyaabo farsamo ah iyo go'aamo kulankii maalintii koowaad looga xaajooday. wasiirka Ruushka difaaca u qaabilsan ayaa ku dhawaaqay in ciidamadooda ay la wareegeen 2 magaalo oo hor leh oo ku yaala gobolka Sami iyo Zaporizhzhia 24 saac soo dhaafay. wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay in dagaalka waqooyiga lagula wareegay deegaano ka badan deegaano ay ka mid yihiin Kharkovka oo Sami gobolka yiraahdo ka tirsan, halka dagaalka barigana lagula wareegay magaalada la yiraahdo Krinjinoye oo ayadana ka tirsan Zaporizhzhia. waxaana intaas lagu darayaa Ukraine ciidamadeeda in 210 in ay wax ka gaareen 345 ay dhinaca bariga wax kaga gaareen dagaalka ka dhacay, 140 dhinaca galbeedka, 110 dhinaca waqooyiga. khasaaraha Ukraine ayaa lagu sheegay in uu gaarsiisan yahay 145 askari oo ku dhintay koonfurta, halka 340 Ukraine ciidamadooda ka tirsan lagu warramay in lagu dilay, lagu dhaawacay dagaallo ka dhacay goobo dhexe. bayaankan ayaa sidoo kale waxaa hoosta looga xariiqay in ciidamada Ruushka ay bartilmaameedsanayaan goobaha shidaalka lagu keydiyo, goobaha korontada, kaabayaasha, goobaha kale ee korontada, xarumaha isteeshimada ah ay ciidamada Ukraine ay wax ku keydsadaan. waa tahay maxamed, waa mahadsan tahay. daawadayaashuna ay mahadsan yihiin. mar kale ayaan soo dhaweynaynaa. daawadayaal waxaan u gudbaynaa falanqaynta wararka iyo wixii warah degdega soo kordha, ha yeeshee aynu ku hakanno qadar xayeysiin. Israa'iil ee u jeexay waa hagaag. waa tahay dhanka Ruushka wadahadallada waa la isku mari la'yahay iyo Ukraine, si kastoo wax la iskugu dayay. Zelensky wuxuu leeyahay sida wararka ugu dambeeyay aynu ku tabeynay ma ogolaan doono inaan dhulka tanaasulno cadaadiska Mareykanka, ma aha mid wanaagsan. meeshii Putin la saari lahaa cadaadis annaga ayaana la saarayaa buu yiri, oo dhul la rabaa inaan wareejinno. maxay tahay arrintaasi maxamed? hore ayaan daawadayaasha HBR ugu sheegnay, Ruushka ma gorgortamo, waxa uu sheegay lagama noqdo. waxaas ayaa lagu habeynayaa baasha.
waxa weeye laba arrin baa isbarbar yaala in loo tanaasulo dhulka la siiyo iyo in uu qaato Ukraine oo dhan haddii uu Zelensky diido waxa Maraykanka uu ku shukaaminayo iyo dalabaadka Ruushka ka imaanaya waxaa u badan tahay in wax la'aan ay ku dhacdo wax badso wax beel ay leedahay tan kale Ruushka ma yooyootano muran iyo dood ma galo dagaalkan waa soconaya wada xaajoodkana waa soconayaan wixii aad dagaal ku ceshan kartid ku cesho waxaadan ku ceshan karinna tartiib ayaa uga hololaysaa tan kale Maraykanka meesha dhexdhexaadiyo iska dhigaya haldamin Maraykanku wada hadalkan waxba kama aha dhexdhexaadiyo ayuu ka yahay hore ayay u fashilantay doorkaasi wax yeelinta ah hadda labada qolo wada hadlayso waa Ruushka iyo Ukraine Ruushkana tanaasulaad ma sameynayo waa tahay Maxamed waa mahadsan tahay waynu arki doonaa wixii arrimahaasi ku soo kordha inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa daawadayaal barnaamijkii wararka caawa waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto daawade wararkan barnaamijyada